kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal meel walba joogtaan galab wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka Hilow galabta si toos idinkaga imaan doona idaacada radio Balcad barnaamijka maanta waxaa marti ugu ah Maxamed Abuukar Caseer oo kamid ah qabiirinta saxaafadda iyo waliba Xaawi Yuusuf oo iyaduna kamid ahayd bahda saxaafadda balse bariyahan dambe u wareegtay dhinaca hay'adaha humanitarianka barnaamijka hadii Allah wada la ogolaado isagoo rogaal cilis wuxuu ka bixi doonaa maalinta berita hadii Allah wada la ogolaado radio Jowhar iyo waliba radio wadani magaalada Beledweyne sida caadada ah barnaamijka ka hor waxaad dhageysataan riwaayadii Hilow qaybteedii 29aad hadii Allah wada la ogolaado kadibna waxaan isugu soo laabanaa dib anagoo su'aalo markaasi weydiin doono martida maanta oo aan idin kala sheegay Maxamed iyo Xaawaba hasaatay waxaad ku soo dhawaataan riwaayadii barnaamijka Hilow oo ay si wada jir u daadihinayaan Cabduqaadir Cabdullaahi Colaadi waliba Ayaan Axmed Cali oo ku kala matali doona Hanad iyo Hibo ma suuganta marka la fiiriyo warbaahintan waxay qayb ka qaadataa nabad dhiska sidoo kale warbaahinta laftirkeeda waxay mar qayb ka qaadataa nabad duminta oo colaadaha dumisnimada colaadaha waata soo laabo doona su'aalahaasi xawkin ku soo dhawo barnaamijka Hilow maxaa kaaga baxay riwaayada dhageysatay aad iyo aad u mahadsantahay bismillaah aad iyo aad u mahadsantahay waan dhawahay waan kaaga mahadcelinayaa casuumadan amaantu noo sameysay sidoo kale ku faraxsanahay inaan barnaamijkan aan ka qayb qaato runtii riwaayadda intaan dhageystay aad iyo aad runtii waa dhacay sheekooyin nabadda awaaneysyo kala duwan oo waxyaalo badan ka hadlaaya iyo barnaamijkan Hilow barnaamijyada lagu soo bandhigay runtii waa dhacay waan dhawahay waan mahadsantahay mahadsantahay Maxamed bal ka waran riwaayadda dabcan sidaad sheegtay qayb fara badan ay ka hadlaysay laakiin magalabta waxa doorka noo saaran sidee markaasi dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu qayb qaadan karaan dhismaha muxuu ahayto nabadda dhinaca meediyaha marka sidee bay warbaahinta Soomaaliyeed ugu qayb qaadan kartaa dhismaha nabadda waa maasanta Cabdikariim warbaahinta qayb weyn ay ka qaadan kartaa dhismaha nabadda waayo warbaahinta sideedaba waa sakiin laba af leh mindi laba af leh afna nabad waxay ku samaysaa wax wanaagsan afna dhinaca magaciisa waa waxbay ku sabtaa ay ku kaysaa marka warbaahinta Soomaaliyana runtii waxaa jirta marar badan ay ka qayb qaadata sidii nabad loo dhisi lahaa in laga gaaro heshiisyo waxa uu naad Hirshabelle oo kale in colaado inay socdaan inay dhowr meel ka dhaceen Shabeelle dhaha ugu badnaata taa maanta la sheegay in dagaal inuu jiro marka dagaaladaasi waxa loo baahan yahay warbaahinta inay tagto in ay dadkii dhaxgasho inay waraysato in magaciisa dhibaatada soo noqonayso dadkan baadiyaha degan mar walba isku dagaalayaan maxay tahay marka warbaahinta haday soo saarto sababta ugu weyn oo lagu dagaalamayo iyo sababta ugu weyn dagaalka soo celceliso ayna fahmaan madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo hay'adaha shaqada kule nabadaynta iyo dhalinteeda xal waa laga gaari karaa tan kale waxay tahay warbaahinta sideedaba waxaa dhibaato weyn dhinaca nabadda marka la fiiriyo waxay u baahan yihiin idaacadaha laftirkooda inay ka run sheegaan dhibka waxa uu jiro waxaa jirta marmarka qaarkood idaacadaha inay warbaahinta ayraha social media ayaa ugu daran Cabdikariim dadka aad iyo aad waxay isticmaalaan social mediana waa ka ugu badan hadda dadka ay adeegsadaan social media marka in dadka lama tababari karo qof walba wuxuu samaystay page ay iska samaystay laakiin marka la fiiriyo idaacadaha iyo warbaahinada kale iyo website-yada iyo meel loo raacay su'aalahaas gaarka oo soo laaban doona hadii Allah wada la ogolaado xaawa bal fikirkaada sidee baa warbaahinta Soomaaliyeed guud ahaan warbaahintu ay kala duwan tahay wala kala qaad marka hore warbaahin ay haajirto waxay ku ekeed TV-ga raadiyaha wargeysyada iyo wixii la halmaan laakiin hadda waxa soo baxay aalado fara badan oo casri ah waan gaari doonaa laakiin sidee ayaa warbaahinta Soomaaliyeed mid caalamka ma ahayn sidee warbaahinta Soomaaliyeed ugu qayb qaadan kartaa dhismaha nabadda Cabdikariim aad iyo aad u mahadsantahay wuxuu ugu qayb qaadan kartaa nabadda tusaale meel baa wax ka dhaceen ama dagaal ama colaad baa ka dhacday ma laga warhaayo warbaahinta waxa u sahlan mar waliba deegaanka wax ka jiraan inay ogaato haddana xaqiiqadii ay ka run sheegto meeshaas wax baa ka dhacay dagaal qabiil ama dagaal kale
ama waxyaalo kaleento adiga oo deegaanka dhexdhacay midka ogaataba in idaacadii laga maqlo intaas xataa nabadda ka mid tahay soo marka waxa ogaan karaan odayaasha deegaankaas ka soo jeeday nabadoonadii wax waliba maqli karaa si macnaha loogu baxo ayadkooda colaashi dadka la kala waa nabadda sababtoo ay uga gudbiyeen Soomaha message-kii ahaa inay meesha wax ka jiraan si fiican waa maasantahay aan u soo laabto casar waa saxantaa baraha bulshada guud ahaan waaye waxyaabo fara badan oo diinta ogoleyn meel lagu soo bandhigo waa jiraan waa saxantahay shaqaal marka loo fiiriyo telegramka iyo facebooka iyo youtube-ka shaqo ahaan waxa badan inta uu qabto tiktok waad aragtay hadda tiktok naftirkiisa waxaa jirto in hadda barnaamij program walaalka caawi uu ka socdo oo dad kala dhuma leeso raadiyo qaar la siiyo shaqo abuur loogu sameeyo barnaamij ninkan la yiraahdo Daar Cali uu wado aragtay in dadka masaakiinta inta u duceynayaan amba inta macnaha oo hadda maanta dhaqaale ahaan ku baxo waa taag hadlayna wax wanaagsan loo fiiriyo dhinacaas loo waxay marka guud ahaan social media-ha markaan isku qabanno sidee dhalinyaradeenna dadka qaab kale iyadoo social media naftirkiisa aan eed la saarin dadka Soomaaliyeed ee isticmaalaya waa eed maahin bartan bulshada Facebook wax ma haleeyo TikTok wax ma haleeyo Telegram wax ma haleeyo wala xal uu haleeyo marka sidee dadka Soomaaliyeed looga dhaadhicin karaa inay barahan bulshada u isticmaalaan si wanaagsan walaal dadka la tirkooda eed maraxtiinaan kullu ra'sami waxay tahay dadka kullu wasku fi waa dadka فرتلتكي الصراحة سما كي سو قلبه في سبب مركا يعني هذا عاونا الجوار وكلا وقتي هذا الجوردي غير شغالي تقول لي بنانك يعني حضرنا كشيء قاعد وانا سنه هذا قارع طي حمد جود وهذا انا وانا لك صوتي او لبا قبيل استعمال وكواس وابل اوجي تقول لي لبا wax kooban marka may marka dhinaca horinta colaada kala fiiro may aan ka wada marka hir shabeel halaas oo kale tugtug la yaqaan oo la barkooda lahaa xafadooda la ogyahay ku kala sidoo kale waa lagu wici karaa madala loo sameey karaa kulna loo sameey karaa waa la wacyi geli karaa waxa wanaag wad laakiin qofka duu ku yiraahdo waxa ku reesanahay anaga fiyus badan waa baa kamid soo saaray aadi waxa kamid ciidamada si fiican fiyus ku reesanayo weliba magac soo baxsaday magac ma soo qoray fiyuusa ku reesanay kida in laga wacyi geliyo la loo tababar loo sameeyo la yiraahdo warsaan wanaagan wax wiil karti sax wanaagan nadiifka oo halaash ku shaqeysta si fiican iska joojiyo waxan kale si fiican waa wanaagsan tahay xawadna asagortu maadsiyahay TikTok horta dad si ay u isticmaalaan dad waxay u isticmaalaan inay xayeysiin ku soo gudbiyaan ganacsi iyo waxyaalahaas u sameeysan tusaale waa aragtay bal dhageystaha ugu horeey qadkan noogu jira aan ba weydiin su'aasha u qabo halo عليك السلام ولا راضي اسك فوقي يا معناها dhalinyaradu waa kala duwan yihiin dad waxay jiraan meel tababar loogu qaban karo qaarna waxay joogaan meel aan la aqoon meeshay joogaan xitaa ileen GPS lagu raadinayo marka sidee ayaad isleedahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhinaca wanaagsan ay u isticmaali karaan wacyigelinta in idaacadaha loo marsiiyo waa kaaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalka barnaamijka nagala soo qaybgashay ayaa ku soco xaawo dhegeystaas wuu mahadsan yahay TikTok-ga ka hadlaynay aaladaas horta waa aalada ugu badan ee Soomaalida aad u isticmaasho waxaa arkaysaa caruur yaryar oo isticmaalayaan sometimes waxaa arkaysaa waalidiin dad waaweyn oo isticmaalaya
marka TikTok horta dadna waxay ku soo gudbistaan saa hore ku sheegay ganacsi inay ku xayeysiistaan dadna waxay u isticmaalaan oo kale inay views iyo waxaas helaan live iyo waxaas galaan marka aaladan TikTok runtii waa aalada ugu xooga badan baraha bulshada markii loo fiiriyo kuwa kale ugu xooga badan waa ma fahan waxa soo xigo aalad la dhaho بابجي midka ciyaalka gameku ciyaaraan iskuuleeda ciyaaraan aaladaas ku soo xigta oo dhalinyaradan aad u xiiseeyaan si fiican TikTok-ana horta dhibaatooyin badan oo yeeshiisa iyo waliba bulshada Soomaaliyeed ee isticmaasho baraha bulshada kala duwan وما سنتي عبد الكريم لو تجيله وما سنتي sanadkii labaad aan fiilaa inuu dhammaanayo bishaan waxaan rajeynayaa in barnaamij horta uu sii socdo waayo barnaamij dadkii sanadkii hore wuxuu ahaa hal bil bishii hal mar sanadkan laba mar laga dhigay labadii mar hataa dadka weli waa ku yar tahay laakiin waxaa iska jirto annaga reer Jowhar iyo reer Balcadbo badanaa hadalka ka qaybgalka dhageystayaasha aad u kooban yahay waxyaabo badan aan حديدها محاكمة تاس إن الله في ما ها سيف يعني إن تشيك من أديات يعني لديهم إن لديهم هذيك هذا لديهم هذا شيء ما بقول لك سنة محتاج ها سيف يعني لكن وحجرته وحيابك له أو حديدها سجل كده يعني مركب برامج إلا سيجوكتي ونقداس يو عملة إن برامج كلا قضبك مقصود درجة صعبة مقصود درجتين وان دمات كي سنة كي وصلنا بالصحافة دلت تكتير إنه مقصود درجة برامج كلي برامج اللي هو هذا لفتركو دتك تيك توك ليد هذا شيء حتى لو عزومي كسوق الجلان سمعناها وعيكم وآديات سؤال في عن أو محوى تقولي طلب في عن هي أنا وقدم بنتي وحتى مركي وحيكوتها مركي رئيسي برامج كيلو أتكسوق قادتي إنكستو طبعا محوى كل ما ذي ضرادي أتكسوق بشيء حدني وقدم بين محاد وباقي لهات dhalinyarada caadaystay in baraha bulshada sida qaldan u isticmaalaan maxaad tala ahaan u soo jeedinaysaa barnaamijka Hilow ugu dambeyntii horta waxaan ku hormarayaa dhalinyarada baraha bulshada sida qaldan u isticmaasho runtii baraha bulshada horta xaalado badan oo caafimaad daran way ka iman karaan qofka hadii wax badan waqti zaid u dheer uu isticmaalo social media ama caawidan uu ku jiro xanuuno kala duwan oo ma karo hurdo la'aan hadii ku dhacdo immunity-giisa oo daciifi kara marka horta dhalinyarada waxa kula talin lahaa in aragtida indhaha horta ma joojinayaan hadii joojiye la dhahay bad ay soo koobaan inta isticmaalayaan waqtiyo uu ahaado habeenkii xilli hore ay seexdaan sidoo kale horta aad u faraxsanahay barnaamijka Hilow shalay kulanka aan ka qayb galay maanta si toos ah idaacada si live u fadhiya marka waa idin kaga mahadcelinaa barnaamijkan waxaa rabaa inaan soo badisiin dhalinyaro badan lagu casuumo la waco hadda sidoo casir sheegay dhalinyarada baraha bulshada isticmaasho kale insaan camal in kulan dood wadaag ah sameeyo in ka qayb qaataan waa jeclaalaha وماسنتها قلبت برنامج كأي هالكاس إنه جوك سيجار رجال علي سوحد دقيقة سدونتان دي الله ود الأقول هذا مالين تبريتها ذيك وكلا سعودنا إذا عذاها كلا راديو جوهر يقولي براديو ودني مقالة البلد ويني برنامج كا وحنومها تعلنيا أو مرتي وها محمد أبو بكر عسيري يحاوكين أو لبضة بصحافة كترسن وحنا كسو قادنا لما أنت قضب مهمة أو كسب سنسدي مركز الجيرة الصوماليات وقف قادنا لها إن بديسك تاني يكون كين حاجات دي الله ود الأقول هذا وأنا جوز كدوبن وأنا جي مع المرتدى ده هاي سيدا إني بتقليه